20 Diseembar 1920 waa maalintii uu geeriyooday geesigii Soomaaliya Sayid Maxamed Cabdulle Xasan. Haddaba 101 sano kadib dadka Soomaaliyeed maxay ka xasuustaan Sayid Maxamed Cabdulle Xasan? Sayidku wuxuu noolaa muddadii u dhaxaysay 1956 ilaa 1920. Wuxuu ahaa hogaamiyihii daraawiishta lana dagaalamay gumeystayaashii Ingiriiska, Talyaaniga iyo Xabashida, isagoo kula dagaalamay dhulka loo yaqaano Somaliland, Nugaal iyo Taleex. Sayidka oo cadaanku ugu yeeraan Maadamullah oo ah wadaadkii waalnaa waa sheeko kale oo Soomaaliyeed oo ah taariikh dalkeenu ku faano baal dahabi ahna kaga jirta. Sayidku wuxuu dhashay sanadkii 1956 gugii la magac baxay Gobaysari oo ahaa gubar waaqo oo dad iyo dunya wixii dhashayba hana qaad noqdeen. Wuxuu u dhashay balliga la yiraahdo Axmed Deeqo oo Buuhoodle ka tirsan. Quraanku wuxuu ku bartay gurigooda, ilmigana wuxuu ka raacday xer fadhiyi jirtay Nugaal abaarihii 1892. Wuxuu u kacay Maka iyo Madiina waxayna israaceen 13 wadaad oo ay isu xir ahaayeen. Sayidku magaalada Maka waxay isu arkeen wadaad Suudaani ah oo Saalix lagu magacaabi jiray. Sayidku wuxuu ahaa Saalixiya oo ah dariiqo ka tirsan Suufiyada. Xaaji Maxamed 1995 ayuu dalka dib ugu soo laabtay. Markii uu dalka soo caga dhigtay Berbera ayuu Ingiriisku canshuur ugu diiday, isagoo kor u qayliyay kuna afceliyay ninkii cadaanka ahaa. Wuxuuna ugu jawaabay, adiga ayaa canshuur ka qaaday markaad dalka imanaysay. Dabadeedna afceliyihii baa ku yiri Ingiriiska, waa wadaad waalan inaga daa. Sidaa darteed waxaa Ingiriisku ku magacaabay wadaadkii waalnaa. Daraawiish 20 sano ayay duurka ku jirtay, mar jibiyo iyo marar ay goolistaanba. Xabashi, Ingiriis iyo Talyaani intaba fooda ayay istareen. Heshiisyo badan ayay galeen, dhammaan guuldarro ayay ku dhamaadeen. 1920 goobood ay ciidamada daraawiishta iyo Ingiriisku ku kulmeen. Ugu waaweynaa ama dagaalka xumi ka dhacayna waxaa ka mid ahaa Afbakayle, Farandhindin, Cagaarweyne, Daratoole, Jidbaale iyo Dhulmadoobe. Agoosto 1913 duulaankii koowaad iyo kii labaad oo bilowday 1999 waxa ay dhamaadeen Oktoobar 1902. Goobihii Ingiriiska iyo Sayidku ku kulmeen waxaa ugu waaweynaa Afbakayle iyo Farandhindin. Ingiriiska intii ay socdeen labadii duulaamaad ee hore waxaa u kordhay waayo aragnimo dheeraad ah, waxayna ogaadeen xoogga daraawiishta oo ah mid aan loo babacdhigi karin. Julaay 1903 waxaa dhammaaday dagaalkii saddexaad. Intii ay socdeen dagaaladii u dhexeeyay Sayidka iyo Ingiriiska kuwa oo ka socday gobolada bari iyo waqooyiba. Dagaalkii afaraad wuxuu ahaa mid ay xoog badan uga qayb galeen maraakiibta dagaalka, waxaana Ingiriisku go'aan ku gaadhay in Sayidka sidii dowlad xoog badan oo kale loola dagaalamo. Dowladda Ingiriisku waxay isku dayday inay Sayidka u isticmaasho siyaasad la mid ah tii boqoradii Indida ay kula dhaqantay oo ah inay maal badan iyo mushaar joogto ahba siiso. Dagaalada caanka ah ee dhacay waxaa ka mid ahaa dagaalkii lagu dilay taliyihii ciidamada Ingiriiska Richard Cofield, halkii ay Soomaalidu u taqaanay Cofield ahaana ninkii Sayidku ka tiriyay gabaygii caanka ahaa ee adaa Cofield oo jiitayoon dunida joogaynba.